Kulanka ugu xiisaha badan horyaalka Ingiriiska ee isbuucan la ciyaari doono waa kulanka dhex mari doona kooxaha Liverpool iyo Tottenham. Liverpool ayaa dooneysa inay kulankan badiso si ay u tiigsato kaalinta koowaad ee horyaalka ka hor intaysan ciyaarin kooxda kubadda cagta ee Man City maalinta Axad ah. Sidoo kale Tottenham ayaa iyadana quudareynaysa inay kulankani guul ka gaarto si ay u tiigsato kaalinta afaraad oo hadda ku jirto kooxda Arsenal. Tottenham ayaa leh 61 dhibcood, haddii badiso waxay tiigsanayaan kaalinta afaraad ayagoo hal dhibic ka sarreyn doona kooxda Arsenal oo leh 63 dhibcood. Labadan kooxood Liverpool iyo Tottenham ayaa ciyaaray kulamo gaaraya 53 kulan tan iyo markii la bilaabay horyaalka Premier League. Liverpool ayaa badisay 24 ka mid ah halka Tottenham ay badisay 14, 15 barbardhac ay galeen. 90 gool ayay Liverpool dhalisay halka Tottenham ay 62 gool dhalisay. 6 penalty ayaa lagu abaalmariyay kooxda Liverpool halka 4 penalty lagu abaalmariyay kooxda Tottenham. 6daba Liverpool waa dhalisay, Tottenham 2 ayay dhalisay, 2na waa khasaarisay. 19 clean sheet ayay Liverpool qabatay halka kooxda Tottenham ay 11 clean sheet qabatay. 79 yellow card ayaa la siiyay kooxda Liverpool halka 80 yellow card la siiyay kooxda kubadda cagta ee Tottenham. Kooxda Liverpool ayaa qaadatay 2 red card halka kooxda Tottenham ay qaadatay 3 red card. Liverpool waxaa dhaawac kaga maqan hal ciyaaryahan, kaasina waa Firmino. Sidoo kale Firmino inkastoo shaki ku jiro laga yaabay kulankan inuu benjiga kusoo bilowdo. Kooxda Tottenham ayaa waxaa ka maqan 4 ciyaartooy, waxaana ka mid ah ciyaartooyinka qadka dhexe ee Tanganga, sidoo kale Mark Doherty iyo Skip oo isagana maray qaliin, iyo ciyaaryahanka loo yaqaano Reguilon oo isagana dhaawac ku maqan ilaa iyo bishan bartamaheeda. Kulamada kale ee horyaalka Ingiriiska la ciyaari doono waxaa ka mid ah kooxda Man United ayaa u safri doonta kooxda Brighton halka kooxda Chelsea ay soo dhaweey doonto kooxda Wolves. Sidoo kale kulamada kale ayaa waxaa ka mid ah Brentford iyo kooxda Southampton ayaa wada ciyaari doona, Burnley iyo Aston Villa, Crystal Palace iyo Watford. Ciyaarta ugu dambeysa soo geli doonta aad ku xamaasada badan waa kooxaha Liverpool iyo Tottenham. Axadan waxaa la ciyaari doona kooxaha Arsenal iyo Leeds, Leicester City iyo Everton, Norwich iyo West Ham, Man City iyo Newcastle United. Dhanka iyo kala sarreynta horyaalka Ingiriiska, Man City ayaa ku hogaaminaysa dhibic kaliya iyadoo leh 83 dhibcood halka Liverpool ay leedahay 82 dhibcood. Kulanka Liverpool iyo Tottenham dhex mari doona ayaa wuxuu noqon karaa kulan go'aamin kara kooxda horyaalka qaadi doonta, maadaama horyaalka ay kulamo aad u yar ay ka harsan yihiin. 34 kulan bay wada ciyaareen kooxaha Man City iyo Liverpool iyadoo koox walba ay u dhiman tahay 4 kulan horyaalka, maadaama 38 kulan horyaalka ku ekaanayo. Dhanka kale haddii Tottenham laga badiyo waxay noqonaysaa rajadeedii top 4 ayaa ceel dheer kusii dhacaysa iyadoo hadda leh 61 dhibcood, 2 dhibcood Arsenal ka hooseysa. Arsenal ayaa hadda la ciyaari doonta Leeds. Haddii Arsenal badiso Liverpool Tottenham laga badiyo waxay noqonaysaa in kooxda Tottenham 5 dhibcood laga sare mari doono iyadoo horyaalka ka dhinaa doonto markaas 3 kulan oo kaliya. Man United haddii Brighton ka badiso waxay yeelan doontaa 61 dhibcood maadaama kooxda Tottenham ay aad uga goolal badan tahay. Waxaa la filayaa Man United inaysan sanadkani ku dhameysan karin kaalinta 5aad iyo kaalinta 4aad, waayo kooxda Man United waxay ciyaartay 36 kulan bay ciyaartay halka 2 kulan kaliya u hartay horyaalka, halka kooxaha Arsenal iyo Tottenham ay ciyaareen 34 kulan ay u hartay 4 kulan. Man United ayaa la filayaa inay kaalinteeda 6aad ay ku dhameysato. Haddii 2 kulan soo socota ay badi weyso kooxda kale ee kusoo xigta ee West Ham ay badiso waxaa laga yaabaa Man United inay usii dhacdhacdo kaalinta 7aad.